Kusoo dhawaada taxanaheena qaybtii saddexaad waxaan arkaynaa atariishadeen oo joogta eelboorka kana soo dhuumatay waalidiinteeda una soo dhuumatay wiilkii ay online iska shukaansan jireen laakiin isagu ku daaday wuxuuna dhahay aad ayaa u yartahay tooraha ayaa magaalada joogay sidaas awgeed wuxuu ugu imaanayaa madaarka iyadan aaday ugu murugoonaysaa maxaa yeelay balantuu ka qaaday ayuu u oofi waayay waxaana leedahay ayaa way gabartaan maxaa way balanta ay qaad maxaa uu oofi weysay ay barweyso ugu horeen aad ayaynu u oonaysaa wuxuuna dhahay ordujiga iska soo dhaqiyeen waxay sii milicsanaysaa toorahay gabartiisa la taagnaayeen kabacdi u soo laabanaysaa wuxuuna dhahay tikid ayaa ku jira saacadaha soo aadmayna soo wada qadaynaa waxayna siinaysaa hadiyad uu asaga jeclaa wuuna ka qaadana wuuna ugu mahadcelinaa waxaa soo wacaya lambar intan waxay bilaabaysaa inay baalkii lacagtiisa u geliso lacag wayna u dhigaysaa ama waxaa la gaaraya waqtigii ay bixi lahayd wuxuuna dhahayaa waalidiintaada warkood maqalka dambe waxyaabahaas camalaha sameyn waxayna bilaabaysaa inay u celiso boonbalii filimka bilaagiis uu siinayay wuxuuna dhahayaa maxaa igu soo celisay waxayna dhahaysaa hadiyad ahaan u qaado waxaana la gaaraya waqti diyaaradeeda waxayna ka fikiraysaa xasuusihii quruxda badnaa iyadii tooraha soo dhexmaray waxayna soo aadaysaa madaarka andana waxaa banaanka madaarka isku soo yaaya walaalkeed wuxuuna dhahayaa ma iminku xanaananayay waxaa samaysay laakiin waxay bilaabaysaa inay hooso laakiin wuxuu qalbiga ayuu dejinayaa wuuna soo wadayaa guriga laakiin si cod hoosa waxay ka leedahay aniga uma bixin wiil online ah waxaan ogaanaynaa in tooraha dartiisa u baxsay u soo weydiisay waxyaabo balantu ka qaaday inuu oofin doono andana waxay soo aadaysaa qolkeeda waxayna bilaabaysaa xasuusiya tooraha uu siinaya boonbali iyo waxyaabihii dhan inay isku aruuriso in diyaariso si ay u xareyso hooyadeed iyo waalidiinteed waxay dhahayaan waxayna ku gaarayaan tiriishada waalidiinteed inay wax dhicin ka soo qaadin in uu dhaqmaan sidii caadiga ahayd oo markii iskuulka imaatay u dhaqmi jireen andana laakiin mobilka ay ka qaadaan saas ayayna go'aan ku gaareen waxaan arkaynaa tiriishadeen waxay bilaabaysaa inay aad u murugoto bokisna ay soo qaadato si ay u geliso xasuusihii uu tooraheena siiyey waxayna soo xasuusanaysaa wax walba shay walba uu siiyey iyo xasuustii ku duugnayd si ayna u bilaabato nolol cusub waxayna bilaabaysaa iyadoo ka xun oo weliba aad ugu xun inay ku aruuriso bokiska waxyaabihii dhan uu siiyey tooraheena tawaanjo boonbalii u dambeeyay ay ku xareysay waxayna go'aan ku gaartay in nolol cusub bilaabato waxaa arkaynaa 2 sano ka bacdi sanji waxay gashay jaamacaddii ay jecleed diiriyadeeda ahayd oo tooraha magaalada uu kasoo jeeday ah waxayna meeshii dib ugu kulmeen saaxiibteedii iskuulka isla dhigan jireen oo laga burinayay waxayna isla degeen hal qol waxaa kaloo arkaynaa gabadh cusub kale oo atirishada saaxiibteeda ayuu joohin ayaa la waxaa kaloo arkaynaa gabadh cusub waxaa ku dul dhacaya wiil waxaana ka daadanaya buugaagtii ay wadatay waxaana caawinayo wiilkaaniiti kabacdi wuxuu dhahay intay u socdaa waxayna u sheegaysaa meesha u socda u soo wadaya waxaa arkaynaa dhanka kale atirishadeen saaxiibteed iyada iyo vlog duubanayaan waxaa arkaynaa wiilka inuu imaanaya asxaabteed wuuna isbaraya waxaana u sheegay inuu magaciisa loo jaanmiin una qaabilsan yahay iskuulkan ee jaamacadan ee dhanka sportiska waxayna ku casuumaysaa xafladeeda dhalashada waxaa la gaaraya habeenkii xafladda dhalashada wuxuuna ku casuumayaa asxaabtiisa oo kale dhan ayuuna keenayaa xafladda waxaana bilaabanaysa inay soo aadaan hoolka waxaa kaloo arkaynaa tooreen dhanka kale isagoo kasoo socda laakiin tiriishadii isaga isma arkayaan isagana wuxuu hoolkan ku lahaa habeen baashaala asxaabtiisa ee isku shaqo wadaaga yihiin waxaana la barayaa gabadhan cusub waxayna wada cawaayaan waxyaabo cabitaankooda waxaana bilaabanaysa tiriishadii asxaab ay heesaan waqtigoodna ay ku raaxaystaan waxaa arkayaan tiriishadii inay banaanka u soo aada laakiin silama filaana waxay arkaysaa tooraheena wuxuuna dhahayaa sigaar cawow ayaa bilowday iyadana waxay dhahaysaa asxaabteeda ayaa iskale jaakadeeda ayayna geliyeen sina wuxuu dhahayaa aad ayaa isku bedeshay mida kale maxaad ii soo bicibaysay iyadana waxay dhahaysaa waa laabanaya hoolka ku laabanaya waxaa bilaabanaysa keeg jarista tiriishada laakiin waxaa soo wicaysa hooyadeed waxayna dhahaysaa waa inaa guriga aada iyadana saaxiibadeen hayay dhahan keeg hore igu soo qaada ayay dhahaysaa andana way soo baxaysaa banaanka markay soo aaday iyada waxay soo xasuusanaya tooreen waxayna dhahaysaa duq waaxid asna wuxuu dhahaa in ma iga hadloosaa iyadana waxay dhahaysaa may waxuu aska dhahayo oo keliya wuxuuna dhahayaa maxaa asxaabta asraacayna dhahaysay aawo kabacdi
iyadana aan kaliya socday dheesaasna wuxuu soo qaaday baabuurkiisa wuxuuna u soo wadayaa kambaska ee iyada hadda wax ku barato qowb ay dareemaysaa wuxuuna u daarayaa kuleelaysada kabacdi waxaa la gaarayaa kambaska wuxuuna u sheegay habeenkii inay kaligeed banaanka ay soo bixin wuxuuna siinayaa malab si ay madax xanuunka ahaay awgiis ugu cabto way soo bixisaa guriga ay imaanaysaa waxayna bilaabaysaa inay malabka qasato waxayna bilaabaysaa inay cabto wuxuu u soo qorayaa qoraal ah inaysan kaligeed banaanka habeenkii soo bixin wuxuu kaloona u sheegayaa inuu ku faraxsan yahay magaaladan uu aad ugu cidlooday inay imaato markuu ogaadan uu aad ugu farxay laakiin waxay isweydiinaysaa maxaa magaaladan dad ugu nool gabadhii maalinkii aaway kabacdi waxaa ogaanayna asxaabteeda iyadoo la hadlaysa ay arkaan markaas waxay weydiinayaan sheekada jaceylka intan waxay dhehaysaa isaga intay teem ii soo wacin saaxiibtii darteeda ii soo wacay iyadoo isjeclaayeen waxayna ka dhigaysaa qisadeeda jaceylka inay ku dhacday saaxiibteeda waxaan arkaynaa habeenkii malabku markuu soo gadaayay kabacdi subaxii dambe waxaa arkaynaa saaxiibadeed mid ka mid ah inay baxday andana tiriishada waxaa soo wacaya walaalkeed wuxuuna ku dhahaya waa inaas duwaansha uu raacda casho andana waxaa arkaynaa shir tooreen ku jiro iyo geemka soo saari rabaan waxaana ilaa qof haya ma jiraa fikir cusub waxaana leeyahay tooreen ahaay kabacdi wuxuu sheegay in geemkooda cusub uu ka dhigaan mid lagu isticmaali karo computer iyo mobile ba shirkada meesha ayuu kusoo gabagaboonay waxaa arkaynaa tiriishadeena waxayna usoo qoraysaa tooreena habeen horaadsaa guriga ii keentay waxaa kugu casuumayaa casho waqtiga firaaqada leedahay waa inay isoo sheegtaa andana isna wuxuu u qorayaa diyaar waaye laakiin wuu soo wacay wuxuuna leeyahay macnaha maxaa waa sida akhlaaqada leh ay ula hadloosid iyadana waxay dhehaysaa aabahey wuxuu dhihi dadka 5 sano iyo wax ka weyn waa inaa ixtiraamtaa adna waxaa soo xasuusta inaa 5 sano iga weyn tahay asna wuxuu dhahay laakiin iyada waxay dhehaysaa waxaa rabaa inaan kuu sheego in muddadii 2 sano aan iska mashquulinayay mobilka kambaska waa laga haystay kambaska ku noolee mobilka mal ogola intan saas ayay u dhaawaa dhanka waxaa arkaynaa subaxii dambe waxaa arkaynaa tiriishada saaxiibta inay wiil jecel ay samaystay in tusta saaxiibadood wiilkan kalena oo ahaa madaxa sportska ee tiriishada wuxuuna dhahayaa wuxuu ku casuumay isbuuca dhammaadkiisa shaneemo andan iyadana way ka ogolaanaysaa sidoo kale toora waxaa loo soo dirayaa boxing waxaan u soo diraysa gabadhii filimka bilowgiisa qaybaha kala fiirsateen oo habeenkii ugu lacagta ay siinaysa uu ka diidaya andan wuxuu u qorayaa subaxii dambe xisaabteen xirkeena maroor ayaa xilnay marka kale ha ila soo hadlin iyadana waxay dhehaysaa maxaa ula jeedaa mar kale ha ila soo hadlin waxayna dhehaysaa waxaan jeclaan lahaa inaan isla soo casheeno andana mobilka way soo wacaysaa mana ka qabanaa waxaa ogaanayna in extiistay saasna uu iskaga indhitiraa waxaa u imaanaya saaxiibkiisa shaqada wuxuuna dhahayaa maxaa xuntiisna wuxuu dhahayaa hadda cunaa isna wuxuu dhahaa qolka shirka kuu sii qaadaas meesha ayaa ku cunaysa isna hay ayuu dhahayaa waxaa la gaarayaa holkii meesha shirka loo qabanaya waxaana bilaabanaysa in geemkii cusub lasoo saari rabay in laisku raaco intana soo saar intuusan sanadka dhammaanin waxaa bilaabanaysa tuureen inuu cuno cuntadiisa wuxuu bilaabanaysaa xanuun maadaama cuntada wax ku noqday waxaa la gaarayaa habeenkii waxaan arkaynaa in tiriishada asaga isbalansanaayeen isbuuca dhammaadkiisa habeenkii cashada isku raaci lahayn laakiin iyada codkeysi waxay ka dareemaysaa inuu xanuunsan yahay waxayna weydiinaysaa meesha xanuunayso inuu usoo diro locationka wuxuuna usoo diraya locationkiisa andan waxay imaanaysaa meesha shaqadiisa waxayna arkaysaa atooraha waxayna usoo wadaysaa banaanka waxayna raadinayaan taxi intay taxi raadintiis ku jiraan waxay isku dullacayaan shil ayaa meesha ka dhacaya waxaana u imaanaya taxigooda wayna raacayaan waxaana loo wadayaa isbitaalka insha allah birthday 4 la socda haddii aadan daawana qaybaha ka horeyna soo daawada kor ayaa idin soo saaraya fiidiyowga dhammaadkiisa bye